kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah. barnaamijkana waxa uu idin kaga imanaya ama idin soo gudbinaya jigjiga cable anoo bareelka casaha ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya. barnaamijkana waxa marti ugu ahaa Cabdalla Kaneeca oo ahaa ganacsade waxna ka qora arrimaha bulshada sidoo kale tana sameeya ama soo bandhiga muuqaala uu bulshada ku dhiirigeliyo. Cabdalla Kaneeca waxaan ka wareysan doonaa bal Soomaalida iyo isticmaalka baraha bulshada qaabka uu yahay, qaabka loogu talagalay iyo qaabka ay u isticmaalaan. waxaan ognahay inay jiraan warbaahin shacabka ama bulshadu caalamka ay isticmaasho oo kala duwan, kuwaas oo dadka ay ku soo bandhigaan afkaartooda. qaar baa aqoon guud ku soo bandhiga, qaar baa diintii ku soo bandhiga, qaar baa warar ku soo bandhiga. sida marka Soomaalidu ama qaabka ay u isticmaasho ka duwan qaabkii iyo maarta shuruucdii u taalay shirkadaha iskale aaladahan isgaarsiinta ee bulshadu ay isticmaasho. Cabdalla Kaneeca aad baan kuu soo dhaweynayaa, farxad bay tahay in barnaamijkan aan kugu marti qaado. waxaan filayaa dad badan oo asxaabaha oo ku daawan doona inay ku aqoonsan doonaan oo ay ku garan doonaan, maadaama waxa weeye Nairobi aad waxa weeye dhalinta iyo maarta dad badan ay ku yaqaanaan. soo dhawow, bal waxaan ugu bilowdaa marka ugu horeysa Soomaalida iyo baraha bulshada isticmaalkooda inoo dambeysay. baraha bulshada maxay yihiin? meeqa waxaa jira baraha bulshada ama warbaahin bulsho oo Soomaalidu ay isticmaasho? midba waxa weeye dhinac ha ka soo galeen. ilkaas aad baad u mahadsantahay. asxaabtaadana aad baan u salaamayaa. baraha bulshadu dee maalinba meel bay soo joogtay. waana platformo aad u fara badan. qaarkoodna ay hal shirkad ay wada leedahay, qaarkoodna ay shirkado kale ay leeyihiin. waxaa xasuusanaa waqtiyada ka mid ah in yacnihi aan soo joognay messenger iyo xilliyada ka mid ah ninbaas hadda dhow buu ahaa mugta. marka messenger baa nagu cusbaa. waagaan anigu soo madax soo qaaday wixii igu horreeyay hadda horta muxuu ahaa hotmailka waxa ku lifaaqnaa wixii xigay wuxuu ahaa mig 33 oo kale. si fiican waad soo dhawaatay. barnaamijka horta anigu waxaan la koobsaday barnaamijkan 2003 iyo 4 aad iyo waxaan nagu cusbaaba internetkaba aad iyo internetkooda ee aalada weyn ah ee badweynta ah baa nagu cusbeed. marka hotmailka oo aaladihii macnaha la isku yani waxay bedelay oo loogu talagalay in macnaha xiriirkii caalamiga ahaan jiray ee nooca faxki waraaqaha la isugu diri jiray uu bedelay. waxa laga dhigay qayb electronic ah. meesha faxka number la garaaci jiray oo dib iyo wax laga midan jiray. waxa macnaha barnaamijka hadda qofka emailkaada hadda aad u qorto isla haddu gaaraya weey. systemkii faxka ahaa waxa loo dhigay macnaha e-fax waqti qaadan jiray. barnaamijkii macnaha hotmailka emailinka iyo dadka inay xogahooda iyo warbixintooda isku wadaarsadaan baa waxa ku lifaaqnaan jiray aalad la yiraahdo messenger ama MSN dadku say u yaqaanaan. MSN messengerku waxa qayb lagu sheekaysto oo si toos ah dadku uga sheekaysan karaan. si group jiri jiray gaargaarna uu jiri jiray. barnaamijkaasi 2006 anigu saddex baa iigu horeysay. waa iigu horeysay de waa dadku waa iska nabar isku dhufsan doonaan hadhow, laakiin anigu waqtiyadaas ay meesha waxa ka soo baxay sidaa halku daam malaho de waxaad arkaysaa 60 jir hadda soo galay aad iyo iyo 13 jir hadda ku wada jira arkaysaa macnaha internetka. meesha meel age taqaana horta ma aha. waxyaalaha dhibta naga haystay ka mid tahay waan u iman doonaa. marka messengerkii marsi loo joogay 2006 iyo markii la soo gaaray baa waxa soo baxay aaladahan kale ee mictriga. sababtuna waxa weeye kombiyuutarada la isticmaali jiray messengerka, laakiin taleefanadan yar macnaha keyboardka lahaa laakiin shaashad weyn laho waxa jiray softwareadan mictriga iyo nimbaska ku shaqeyn jiray. halkaas markii la soo gaaray wuxuu qofkii uu ka xoroobay inuu tago oo intercafe aado oo lacag ku bixiyo oo halkaas uu macnaha xogtii dadkii uu rabay inuu kala hadlo halkan kala hadlo. waxay u soo wareegtay hadda taleefankii mictriga wixii halkaas, laakiin wali mictrigu qaabkii computerka inuu qofka photo tago oo sawir soo galo oo isa soo diyaariso naasho halkaas wixiisa qofka kula wadaagi jiray. sawiradiisa halkaas qofka email ahaan buu u diri jiray. maalinba meel bay tahay qofka de meel yar oo waxa jira profile-ku qofka hataa sawirka iska saaran jiray, laakiin dib baa laga mudan jiray. halkan kale mictriga iyo nimbaska iyo malahan waxa sawir ma jiro, laakiin waa qoraal hataa cod ma lahayn. xaalad bay bedeshay markii 2009 la soo gaaray. dadkii ugu horeeyay waan maleynaa in Soomaalida ee 8 iyo Facebook iyo casrigan teknolojiyada ay la soo gaadhay. waan u maleynayaa waliba inay teknolojiyada markaa ugu horeysay ee social platform ah oo la isticmaalo. Facebook-gaas horta dadku oo la koobsadeen dad xoogaa oo ilaa 2013 dad waaweyn oo yani miir qaba oo yani anshax ahaan
wanaagsan oo dadkii weli website leeyda intaan xasuusto website-yada waxa jir waaweyn oo wax laga akhristo Soomaali Talk uu kamid yahay aad iyo aad Fahdi Yaasin baa lagu xasuustaa oo aad wax ugu qori jiray dadkii caan ku ah oo kamid ahaa marna gacanta ku hayn jirayba dadkii baa marka waxay ku soo jabeen platformkan oo qormooyinkooda iyo maqaaladii xagga geen jireen baa halkan waa lagu doodi jiray madalay lahayd qob sugaaneed qayb siyaasadeed dadka way kala lahayn qayb kasta groupkiisu qofka aad jiray aad iyo aad fadhi ku dirarkan iyo dhibtan faraha badan leh iyo waxaan hadda ma jirin aad iyo aad marka dad waaweyn oo deemir qaba aad iyo aad oo garanaya waxay ka hadlayeen dadka la hadlayaan baa meeshan ku soo gudbiyay iyo qaabka loo isticmaalo qaab caafimaad qabto waxay de website-kii website dad waaweyn baa akhrisan jiray aad iyo aad dhalinyarada ay messengerkaas isaga jireen marka raggii website leeyahay wax qori jiray wax yaqaanay ee dadka ugu macquulsanaa baa xaggan xoogaa u soo wareego marka waxay ku bilaabeen qaab qoraalka xataa sawiro badan oo dadka ay soo dhigdhigaan ma jirin deedna halkaas waxaa kala biloomay casrigii iyo social media iyo runtii iyo noloshii inay isbedeshay 2019 markii la soo gaaray 12 markii la soo gaaray waa duufaanta wala soo galay duufaanta warbaahin macnaha social media aad iyo aad ee dhibaatadeeda waxa weeye waxaan dhihi karaa mar xilliga ay soo wajahday weeyaan 2014 markii la soo gaaray ee siyaasadihii iyo wixii wadanka ka jiray iyo abaabuladii faraha badnaa iyo laga qaban jiray dunida qeybaha kala gudubsan Nairobi London iyo waxa uu caansan muqtaa Minnesota aad iyo aad marka halkaas waxa ka bilowday xaalad aad u weyn marka Instagram baa yimid oo isu soo bedeshay Snapchat baa hadda jiro waxa kaloo jira Twitter marka adana halkaas wax yar kooban buu qoraa waxa kooban qoraa ma bajeclaba marka inta dad baa Facebook marka Twitter iyo Instagram iyo Facebook markii la isugu yimid waa la kala soocmay hadana aad iyo aad dadka inta Ingiriiska jecelaydina ku hadasho Twitter gaadi jecelaydina reer galbeedka ummadda kala fariimaha gaarsiiyay Twitter bay aad in yar kooban la qori intii jecelayd inay macnaha daah qorto oo yani ama akhrisato anigu dadku waxaan ahay kamid ah inay aad u akhristaan wax jecel qormooyinka dhaadheeraad dadkii jeclaa inay qoraan iyo dadkii jeclaa inay akhristaan waxay ku hareen Facebook oo waxay halkan nama badeeqdaba nama badeeqdo waa run fariiqo u gudbin karnaa laakiin qolyaha iyagu waxa la yiraahdaa inta Ingiriiska taqaan xagga jirta la aad iyo aad Instagram-ku isagu wuxuu ku soo ururay waxaad cunaysa sawir geli aad iyo aad dam isqul ku jirta sawir geli يعني هو ميل وسميسان وميل آديات way kooban tahay marka waa sawir iyo muuqaal yar oo kooban wax noocaas sawir iyo waka waa inta yarta hadda waxay ku soo yaraadeen IGTV wax la yiraahdo oo macnaha muuqaal yar oo 3-4 daqiiqo socon karo in halka hadda IGTV uu ku sii leefaax aadiyaad laakiin waxaad moodaa meel oo yacni badweyn oo hadda la isaga soo gaaray la isku yimid waxa soo baxay hadda bah la yiraahdo TikTok kullu sheekadiis dib baan ka geli doonaa isagana waxa weeye hawshiisu mayro waa tacdal aad ma san tahay hadda marka la fiiriyo Facebook-ga Instagram-ka iyo isagana WhatsApp-ka saddexdaas inta badan waa shirkadan Facebook-ga isku dhinac yihiin waa isku waxa weeye isku shirkad baa isku leh WhatsApp-ku waa telefonkaagi oo yacni oo laga dhigay maxay ahayd toy oo macnaha telefonkii caadiga ee line-ka ahaa oo xagga cod oo internet loo bedelay VoIP baa la yiraahdaa waxyaalahaas voice of macnaha IP protocol marka meeshii ay ahayd inaad lacag qof ku wacdid oo kale baad waxaad dhex maraysaa internetka laakiin waa inaad internet haysato isagu laftiisu wuxuu leeyahay qayb oo sawirada wax la gashto oo riyadu lafti ha soo waad aragtaan malayna oo qofku xaaladiisa wixiisa iskaga yaro bixin karo Facebook-ga iyo Instagram-ka iyo WhatsApp-ku way isku lifaaqan yihiin balse kani waxa xadida number telefonkaaga qofka number telefonka ka hayso umba arki kartaa waxa arki karo qofka haya xogaa waxaad moodaa inay privacy-gaagi waxa qofkaaga arkay ee dadka ugu talagashay inay kooban hadii 5 qof kugu jirto 5 qof baad ugu arkay numberkaaga qofka aad siisana wuu arki karaa waxa aad waageliso xogaa waxaad moodaa marka inuu isagu keer si iska private ahaan kuwa kale qofan ku aqoon baa kula socon kara waa run oo kuwa kale dabcan waxay leeyihiin meel public wax ku soo qoro dadka dhan ay arki karaan laakiin marka laga reebo groupyada WhatsApp-ka isagu ma lahan meel public ah oo dadka dhan ay isugu yimaadaan oo waxa weeye intaad wax ku qorto qof kasta uu gaari ma lahan WhatsApp-ku qaab baa jiro la sameeyo oo waayadan waliba aad noogu badan xataa qabiiladii iyo qoysaskii iyo maxaan ku yiraahdaa dawladihiiba ay wada sameysteen group bad sameyn dadka dhan ba halka gelin admit baa u sameynaysa 2 qof 3 qof halkaas lagu soo waday marka waa meelaha hadda laga wax laga abaabulan moodaa inay ku jiraan ba waagi hore waxaan xasuustaa aan ku dhaafay waliba 2003 iyo 4 iyo 5 baalta wax la yiraahdaa jir meesha lagu fadhi ku diray ahaan jirtay
guruubyaa jiri jiray oo magacyo qabiil leh magacyo xisbiye leh magacyo asxaab leh hataa culummada waa ku jirtay oo waxaa jira xisbiye badan oo hadda burburay oo baa xilliga hataa jiri jiray oo meeshaas lagala socon jiray casharo badan iyo dad badan oo wanaag iyo sameey khayrka ka shaqeeyna waa jiri jiray marka baaltoogu laftiisu guruubyadaasuu lahaan jiray oo cod ah qofba microphone-ka soo qabsanaya uu hadlayaa marka qofba dhingadeynaysa microphone waxaa leeyahay okay adigu waa laga qabanaya qof ku soo jawaabaya loo dhiibay WhatsApp macnaha groupiskii halkaas fadhi ku dararkii systemka waxaa moodaa in hadda loo soo raray WhatsApp-ka hadda halkan ay dooda ka socotaa wax badan baa laga abaabulaa oo waxaad arkaysaa group aadan shaqo ku lahayn oo qofku ugu soo daray aadan garanaynin in lagu soo dhex tuuro wax ka dhex soo aadan garanaynin inta badan waa la abuuraa sabab loo abuurana ma taqaanin marka inta badan dadka ka caawiyay oo hadda marka qofku dadku ay contribution sameynayaan oo ururinayaan rabaan in meel dad loogu tabaruco kale tan qaybta waa taa marka waa faa'iidada waan iman doonaa su'aasha marka waxay tahay aan rabnay inaan u gudubno Cabdalla Soomaalida iyo isticmaalka baraha bulshada waan ognahay waa wax nimcaha weey oo Ilaahay dadka uu siiyay waa wax loogu talagalay qofku inuu ka faa'iideysto wuxuu uga faa'iideysanayaa qaabka wanaagsan laakiin in kasto hay'adaha iskale aaladahan ayagu shuruuc u taalo oo isticmaalka iyo qaabka loo isticmaalayo qof kasta uu isticmaalayo koox ay isticmaalayso dawladda isticmaalaysa iyaga ay shuruuc u taalo gooniya haddana Soomaalidu waxaad moodaa sida maaragtay cayayaan dab ku daadanaya oo kale ama lo ooman oo maaragtay bali biyaha cabaysa ku daadanaysa oo kale oo aan aqoonin ha iska dhoobaynayna intan hore ka cab oo lugtan ku wada qaaysa sida macnaheedu sidoo kale ugu dhaxdaateen marka isticmaalkooda Soomaalida yaan rabnaa inaan isla qeexan oo aan fiirino horta aan kala qaado bulshada Soomaalida horta inteena badan marka Soomaali la yiraahdo sawir qurux badan oo wanaagsan oo dad yacni sama jecel oo yacni dhaqan ahaan dhaqankooda dhaqan diimeed yahay oo afkooda af yacni sugan oo la yaqaano oo yacni oo hala uu leeyahay geesna isfahmi karo la kala guri karin inay yihiin kor marka laga sawirayo waana xaqiiqatan weey oo qofku markuu hadda meel aado magaalo meel tago in lagu heebsado oo si hoose lagu la socdo mooyaan laga dhex garan maayo oo lahjadaadii marka qaar waad la qabsan kartaa si fiican marka bulsho ahaan bulshadeena aan iraahdo bulshada waa bulsho fiican waxyaalaha casriga annaga dad yacnihi shaqo kule ma lihi oo dadkeenu dad waxay ahaan jireen reer guuraa oo reer baadiya asalkeena marka la fiiriyo dad dhaqan leh oo dhaqankooda laakiin baadiyaha ku taxalluq ahaan jiray baadiyaheenii iyo dhaqankii ka jiray iyo xoolo dhaqatadii iyo nolosha sida ahayd adigu laftaada soo martay anigu waan tagay muddan soo joogay baadiyahaasi yacnihi nolosha ka jirto nolosha saxda ah ee Soomaalida xataa magaaladeena markaad qiimaysid aad ka dhadhansanayso way baadiyaheena weli ugu jiro marka la soo galay qarniga 19aad ee magaalada oo aan la qabsanay yacnihi xadaaradihii yacni magaalanimada iyo noloshii magaalada waxaan moodaa inaan horta markiiba jordhiiba aan ku mamnay waxyaalihii cusbaa ee dhaqankii guracnaayo nooga tagay ilbax firgi ma leeyahay yacni dhaqamadii guracnaaya ee gumaystayaasha noo soo wareegay ama Ingiriis ha noqdo ama Talyaani ha ahaado dhaqamadii waxay noqdeen in dadkeena bulshadeena qayb ka mid ah inaan si dhaqso ah degdeg ah oo la qabsano ana waxaan jecelnahay maadaama dad reer guuraa iyo reer baadiya aan ahayn marka magaalada la soo galo ama qofka wuxuu ku cusub yahay inaan la oranin reer baadiya qofku uu neceb yahay in macnaha xoogaa halka lagu dhaliilo marka waxa dhacaysa qofkii inuu gees uga baxo wax buu hadda soo galaya marka magaalada iska dhigaya reer magaalada Soomaalidu dhahay soo qaato macnaha ay dhahdo magaalada timaad dad meel illa la yimaado waa inay heshiistirto waka macnaha si kasto qofku uu magaaladii kula qabsan karo magaalada waa inuu iska dhigo iyo sameynaya waxa dhaliil noqotay hebel waa reer baadiye حقيقة أنا سامع ريد باديني ولا واحد لغفانه وهذا في عنه واللي بدك إنك باديها وكفي عني هاي معناها مجال ده مركز دقنا هنا يكتب ودي حوله نلشي دقك ماشى جوجي احترام كي ضدك سيدي ونولي وإحنا كذا يكتب هذا يكفي عنه هاي نبت مجال تطلع هل كان بطلع لكن هل كان أحد عرض وحبر الشذا نلشن اسبد الشيء يقوليها للدقيني هاي استعمالك وأقبيض لسه واحد بدل ما كله جد marka magaalo soo galkeeni iyo dadka badan ee hadda magaalada xataa ku dhasha waxa naga khaldan xoogay qaab isticmaalka ama qaab barashada waxyaalaha soo kordha social media waa platformyo loogu talagalay ganacsi hada tusaale Facebook oo kale marka fiiriso dee ninka iskala ganacsi uu ka sameeyaa oo page waxa jira ganacsi oo aniga dad Soomaali ba ganacsi ku laho wax ku haysiis بيجيشكاد wax ku haysanaysid adigoo halkan jooga aad gaarsiinaysid wadan dhan waxa lagu sameeyaa wax leeyahay sponsor lacag baad ku bixinaysaa lacagta bixinayso wax ku leeyahay kambaniyal waaweyn wax loogu haysiyaa oo lacag ka helaa billions of dollars buu ka helaa bishii marka annaga wuxuu leeyahay qaybtan isticmaalka ee bilaashka ah
annaga sidaa uga faa'iidaysanay iyo sidaan usoo galnay baa waxay tahay xoogaa qaab yara guracan markaad bulshadeena fiirisana inta badan wax kasta sida loogu talagalay mayaan dhinac kalan ka istaagnayn oo waxaad arkaysaa dadku waxyaalo wanaagsan bay isugu soo gudbiyaan waxyaalo wanaagsan baa laga faa'iidaa meeshan oo khayr badan waa badweyn badweyntu libax badeedna waa ku jiraa kalluunna waa ku jiraa nibirina waa ku jiraa masna waa ku jiraa wax badan baa ku jira marka badweynta haddaad isku tuurto adigu wax walba kasoo filo haddaad tiraahdo laakiin badweyn baa isku tuuraya kalluun baa soo dabanayaan oo dee waa halis baad ku jirtaa marka waxaad dareemaysaa macnaha qaab guracnaanta isticmaalkeena hadda markaad hadda firto مثلا هذا وحبا دعيا ادياد bulshada inta kugu jirto oo dhan waxay ka hadlaysaa wixii dhacay ee xumaa aad aan kugu daray waa wada wari Soomaalida hadda dee uma baahna hadda waxoogaha TV-yada laga daawado aad iyo meelaha hadda warbaahinta taalo cidda ma aado aniga hadda war uma raadsada TV hadda ugu badan tahay website baan galaa laakiin inta kale saaxiibada anaga ugu taxan baan saaka waxa dhacay waxaan ka ogaanay saaka magaalo hebel si looga soo barisay wax iyaga ay soo qoreen waa inaan garanay laakiin qofkaas meeshuu joogo qofkaas wuxuu soo qorayaa wixii xumaa ama dhibtii meesha ka dhacday ama wixii meesha laga hadalhayay waxa laga yaabaa inuu soo gudbiyo waxa arkaysaa marka darafka annaga aan ka istaagno inuu xoogaa inta badan yahay dad buu wanaagsan dad fiican baa jiro meeshan ku jiro meeshan waa badweyn dad baa jira aan hadlin xataa meeshan ku dhex jiro oo adeeg kula socdo dhaqdhaqaaqa xaaladaha ku qeybaynay marka meeshan waa waji adiga aad leedahay laakiin se qaab isticmaalkaaga hadduu guracnaadana duntii lagaa dheehan karo haddii kalena marka laakiin annagu qaabkaan u isticmaalno waxaan odhan karaa 99% aad sidii wanaagsan Cabdulla ma san tahay dabcan saas sheegtay oo aan kugu raacsano waxa tiri inta badan markaan soo kacan dadka asxaabta ee Facebook igu jira markaan Facebook gala waxaan ka ogaaday hal ay ku sugan yihiin kolba meeshaas dhacdada ka jirta iyo xaaladda waxaan xasuustaa markii idaacadaha aan ka shaqeynay idaacadda subax markay tahay barnaamijka subax wanaagsan ma la galaa si fiican barnaamijka marka dadku markay soo wacaan qofku waxa la dhahaa halow idaacadda Hiblaayo way soo dhow walaal meesha aad ku sugan tahay see lagu abriistay isa socodka gawaaridu waa sidee waxa weeye caafimaadka xogaa marka waa la miir qabay markaas marka dadkii halkaas ka ogaan oo idaacadii baa loo ogaanay xaafadka sida ku abriisteen waxbarashadii ganacsiga socodka dadweynaha gaadiidkii wixii baa loo ogaanay haddii uu dhib jiro dibiyaal aan jirto haddii waxbarashada ay maartay liidato haddii uu qof dhibaato ay soo gaadhay hasa loo ogaanay hadda laakiin Facebook markaad gasho qof kasta iyo meeshuu joogo iyo xaaladda uu ku sugan yahay hadduu dhib jirna isaga soo qora hadday nabad jirtana waxa dareemay marka idaacadihii iyo TV-yada qaar badankooda hadda inay laayihiin qaabkay wax wadi lahaayeen waayo wariyihii page buu samaystay xaysiiska idaacadda ama TV-ga geeni jira xataa isaga imka isaga qaad marka waxaad arkaysaa in idaacaddii TV-ga hadda laga soo dhamaanayo oo shaqadii ka socotay xataa hadda looga soo wareegay dhinacan kale oo wax badan hadda looga baahnay marka social media wuxuu bedelay noloshii caadiga ah iyo noloshii wax walba uu ka bedelay waa tahay